madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay dagaalkii ka dhacay caasimadda Soomaaliya Muqdisho kaasi oo u dhaxeeyay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo markaasi dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaada ayaa kulan waxa uu la yeeshay saraakiisha ugu sarreeya ee Soomaaliya. haddaba maxaa looga hadlay ayaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa. soo dhawaada daawadayaal. taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 12 bisha 6 Juun sanadda 2026. haddii aynu ku bilowno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle halkaas oo maalinimadii shalay uu gaaray oo markaasi xariga ka jaray mashaariic laga hirgeliyay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa markii ugu horeysay waxa uu soo hadal qaaday dagaalkii ka dhacay caasimadda Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan xaafadaha waa markaasi xaafadda Bermuda ee dagaal dawladdu kula gashay ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale dagaal ayaa waxa ka dhacay degmada Cabdicasiis gaar ahaan aaga Minerayo ee markaasi degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir ee magaalada caasimadda Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in markaasi xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ay doonayaan inay carqaladeeyaan dagaalka markaasi carqaladeeyaan amniga caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in markaasi cid waliba oo dhaliil ka qabta dowladda Soomaaliya ay miiska wada hadalka imaato ama ay tabashay ka qabta dowladda federaalka. waxa uu xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ugu baaqay in markaasi nooca doorasho ay doonayaan ama nooca dabcan uu dalku u jeeyay ay doonayaan inay miiska wada hadalka ay markaasi la yimaadaan. waxa uu ku eedeeyay in markaasi qalqalgelin amni ee ka wadaan magaalada caasimadda Muqdisho. waxa uu ku tilmaamay in markaasi ay qori caaradiisa ay ku raadinayaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka. waxa uu sheegay in ciddii dabcan waa markaasi aragti keenta ay la fadhiisan doonaan ayna kala wada hadli doonaan oo sidoo hadalka u dhigay. xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ayaa iyagu xalaleeyahay waxay isku aruursanayaan xaafadda oo markaasi ka mid ah magaalada caasimadda Muqdisho halkaas ay doonayaan in mar kale ay uga dhawaaqaan barnaamij ay uga soo horjeedaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. inta badan hadda waxay ku sugan yihiin aaga hotelka marka ay waa markaasi garoonka aadan cadde ay ka degan yihiin magaalada caasimadda Muqdisho. Turkiga dhexdhexaadan ayuu ka waday dowladda federaalka Soomaaliya u dhaxayso xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka asaatee mudooyinkii u dambeeyay fishil ayuu ku soo dhawaanayay erga ka kala socota waa markaasi dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Turkiga ayaana ku sugan gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. welina waxay ugu baaqayaan in madaxda Soomaalida ay markaasi ka heshiiyaan nooca doorasho oo dalku aadayo iyo waa markaasi dagaalka ka dhaxeeya xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Turkiga ayaana ahaa dowladda markaasi sida weyn ugu dhex jirtay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxayna doonaysay in markaasi dhexdhexaadin weyn ay dhex dhigto xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda federaalka ee markaasi Soomaaliya. xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo dhowr mar la kulmeen asaatee dhexdooda ayaa markaasi khilaaf oo ka dhex jira. kulankaasi waxaa ka maqnaa madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu mudooyinkii u dambeeyay si weyn ugu soo beeriyay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka. Farmaajo 4 sano ee dalka ayuu markaasi dibadiisa ayuu ku maqnaa balse markii ay dhamaatay madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya oo ka 15 Juun ee markaasi bishii aanada waa 15 Abriil ee aanada waa markaasi bishii Abriil ee dhamaatay ayuu markaasi dalka dib ugu soo laabtay. waa markaasi shir jaraa'id ay wada qabteen madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed waxay kaga hadleen dagaalkii lagu qaaday Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo markaasi isagu dagaal la galay dowladda federaalka ee markaasi Soomaaliya. waxaa la leeyahay kulankii beesha caalamka ee markaasi Turkiga ay dhexdhexaadinaysay qayb ma uusan ka ahayn madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xubnaha mucaaradka ayaana diiday inuu erga ku laado kulankaasi oo ka dhacay waa markaasi xubnaha siyaasiyiinta hotelka ee magaalada caasimadda Muqdisho ay ka degan yihiin gaar ahaan guriga uu degan yahay madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed. waxay intaa ka dambeeyay mucaaradku waxay doonayaan in markaasi ay u guuraan hal xaafada halkaasi oo markaasi ay ka dhigayaan barnaamijyo ama markaasi khilaafyo uga soo horjeedaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud markii ugu horeysay uu ka hadlay waxa uu u baaqay in markaasi miiska wada hadalka la isugu yimaado iyadoo hore uga codsaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu isagu gurigiisa ku marti qaadayo si looga heshiiyo xaaladda dalka. balse hadalkaasi kama uusan jawaabin madaxweynaha Soomaaliya. waxa uu sheegay in wixii Muqdisho ka dhacay
ahaayeen waxyaabo markaasi yariis oo halkaasi ka dhacay waxa uuna warbaahinta ku eedeeyay inay muuqaalo hore ay soo qaateen oo ka dhacay markaasi magaalada caasimadda ee Muqdisho dagaalo hore uga dhacay ayuuna u tilmaamay balse waxa uu sheegay wixii Muqdisho ka dhacay inay ahaayeen wax yari oo markaasi u dhaxeeyay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda federaalka ee markaasi Soomaaliya dhinaca kale Mahad Maxamed Salaad taliyaha NISA ayaa kulan waxa uu la qaatay saraakiisha ugu sareysa dalka waxa uu kala hadlay xaaladda amni oo dalku marayo waxa uu sheegay in markaasi loo baahan yahay xilligan in dalka laga samata bixiyo xilliga xasaasiga oo markaasi ku jiro khilaaf ayaana u dhaxeeyay ayaa la leeyahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Sariye Guuti Ibrahim Maxamed Maxamuud iyo sidoo kale taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad khilaafkan ayaa waxa uu salka ku hayaa kadib markii Generaal Maxamed Ibrahim Maxamuud taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha maxkamadda darajada koobaad Xasan Cali Nuur Shuute ay markaasi dowladda ama markaasi Mahad Salaad oo si weyn u doorayay in la weeraro taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Generaal Odawa Yuusuf Raage ay diideen markaasi Ibrahim Maxamed Maxamuud taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha ciidanka aanada waa maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute waxayna sheegeen in markaasi mas'uul hore u soo matalay dowladdan oo Generaal Odawa Yuusuf Raage waa looga wixii uu dalka ka qabtay waxayna sheegeen in marnaba aan la weerari karin oo markaasi taliyihii hore ciidanka xoogga dalka khilaafkaasi ayaa u dhaxeeyay Generaal Odawa Yuusuf Raage waa la xaliyay wuxuuna la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu si cad ugu sheegay waxa uu doonayo markaasina waxa uu sheegay in xaafadiisa aan la weerari karin oo ku taala xaafadda Minraayo degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir halkaasi oo dowladdu ay markaasi ay weerar ku qaaday xubnaha hore ee markaasi dowladda ka tirsanaa oo kamid yahay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Aanad waa markaasi waa Shariif Sheekh Ahmed iyo sidoo kale wasiirka hore ee amniga dowladda federaalka Cabdullaahi Maxamed Nuur oo isagoo hotel Elite oo ku lahaa aaga degmada Cabdicasiis la weeraray halkaasi ay dowladdu hub fara badan ay ku soo dhigtay balse haatay Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo ciidankiisa iyo sidoo kale ciidamada taabacsan Sanay Cabdulle taliyo oo markaa sargaal ka mid ciidamada dowladda ayaa iyagu hub banaanka ula soo baxeen waxaana la leeyahay waxay ku sugan yihiin gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi dowladda ciidamo fara badan ay geysay waxaana la leeyahay waxay ku raajogtaa hubkaasi oo loo soo saaray dibadda magaalada caasimadda Muqdisho Mahad Salaad wuxuu la kulmay saraakiisha ugu sareysa waxa uu kala hadlay xaaladda dalka iyadoo wali dalka uu ka maqayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka maqayaa magaalada Muqdisho magaalada Jowhar ayuu ku markaasi ku sugan yahay maanta ayaa la rajeynayaa inuu dib uga laabto magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle halkaasi oo maalinimadii shalay uu gaaray oo mashaariic waaweyn oo markaasi halkaasi ka daafray Mahad Maxamed Salaad saraakiisha ugu sareysa ee dalka wuxuu ku amray in markaasi laga wada xaajoodo wax kasto iyaga dhaxmaray hasaatee si mid loogu jeesto amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho markaasi ka jira iyo waxyaabaha waa markaasi ka soo cusboonaanaya xiisadda Soomaaliya ee markaasi waa gudaha Soomaaliya ee markaasi Muqdisho Mahad Salaadna waxa uu xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ugu baaqay in miiska wada hadalka ay yimaadaan si ay uga wada hadlaan xaaladda dalka oo markaasi ku aadan sidii doorasho loo wada ongol yahay oo dalku u dareeri lahaa wali xubnaha siyaasiyiinta mucaaradku waxay ku adkeysanayaan in doorashada qof iyo codka ay dowladda dalka ay ka hirgelinayso inay si tahay mid ku shubasha ama hal dhinac u jarjeerta balse dowladdu waxay doonaysaa inay doorasho qof iyo cod ay markaasi ka hirgeliso dalka waxay soo afjartay Koonfur Galbeed madaxweyne rasmi ayaa markaasi ama hogaamiye rasmi ayaa loo magacaabay Aadan Madoobe ayuuna noqday sidoo kale dowladdu xilligan waxay culays saaraysaa Hirshabelle iyo Galmudug Hirshabelle madaxweynaha Soomaaliya ku sugan Cali Guudlaawe madaxweynaha maamulka Hirshabelle waxa uu ku dhawaaqay inay garab taageen dowladda Soomaaliya wax kasto doorasho qof iyo codana ay kaga dhawaaqi doonaan maamulka Hirshabelle dhinaca kale Axmed Cabdi Kaariyo qorqor madaxweynaha maamulka Galmudug xiisad ay karan ayaa ula jirtay dowladda khilaafkeeda uu dhaxeeya asaatee dowladdu markan waxay iska soo xirtay maamulka Koonfur Galbeed Hirshabelle iyadana waxay u muuqataa mid markaasi aan markaasi u hogaansatay waa dowladda federaalka Soomaaliya maamulka kaliya caqabada ka taagan ayaa maamulka Galmudug dowladdu dabcan markan waxay ka dambeeyay Galmudug ayay markaasi ku wajihi doontaa si doorasho qof iyo cod loo qaban lahaa maamulka Galmudug haddaba waxyaabaha ka soo kordha halkan ayaad markaasi ka daawan doontaan